asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaad kanaalka afiifa warsame maanta waxaa rabaa inaan idinla wadaago 6 qalad oo arday walba uu sameeyo xaqiiqdii markaan ardanahay qofba siya isku daydaa inay wax u barato qofba siya isku daydaa inay wax u xalisato daraasaadkeeda laakiin waxaa jiro qaladaad aan anaga dhanka wada simanahay oo ugu yaraan qof walba qaladkaasi waa uu sameeyey ama hadda ayuu sameynaa qaladka koowaad ayaa waxay tahay mararka qaar markaan rabno inaan aqrino buugga textbook ama buugga weynka markaan rabno inaan aqrino kaliya waxaa ku sameynaa highlight bisa ku sameynaa mise markaan note qaadanayno waxaan qornaa paragraphka dhan waxa ku jira ayaan qornaa jumlo dheer ayaan qornaa taasina inta badan qalad ay nagu tahay sababtoo ah waxay qalad u tahay markaad rabto examka inaad gaartid haddaa maagta buugga ku laabo buuggi wuu wada highlight garaysan yahay meelaad aqriso meel kasta way calaamadaysantahay meelaad aqrisa ma taqaanid haddaad maagta nootekaada ku laaban nootkaaga tiradii ka bata inaad aqriso kama gaaraysid marka taas si aad uga gudubto markaad note qaadanayso kaliya waa inaad qortaa xarfaha muhiimka ah bes inaad qorto waxyaabaha muhiimka sababtoo ah page walba asaga dhan muhiim ma ahan meelo muhiimaha ku jiro meelahaas muhiimka inaad qortid jumlo dhammaystirana inaadan qorin kaliya aad qorto ereyo waxaa jira maaragtay center u ah masaba xudun u ahaa jira ma ogtahay paragraphka ereygaas xudunka u ah kaliya inaad qorto kuwa kalena aad soo xasuusato sababtaan kula aad soo xasuusato waxay tahay hadda aad tiraahdo 2 lagu daray 2 equal 4 afar qorato hadhow markaa maagto ku celi afiirad adra 2 lagu daray 2 waa 4 hadda ku siyaad waxba waa aqrisa bis so marka waa inaad tiraa 2 lagu daray 2 bis aad ka tagto jawaabta aadan qorin hadhow markaa maagto u imaatid inaa aqrisid inaad tiraa 2 lagu daray 2 waxaa ku xig inaad ka fikirtid aanta tiris aad tiraadid waa 4 markaan ku dhahay eraya gaaban qor waxaan rabaa inaad soo xasuusatid haddaad mar soo xasuusatid cashirkaasna mar kale ma ilaabaysid markaa note qaadanaysid kaliya qoro eraya yar ah oo maaragtay jumladan xudun u ah tusaale hadda 2 lagu daray 2 in 4 la helo 2 xudun ay u tahay 2 lagu daray 2 waa xudun soo ma aha haddaa 2 haysatid 2 kale waa xudun erayada xudunka inaad mar walba qorato oo muhiimka u ah jumlo dheerna aadan qorin si hadhow markaad aqrinaysid adigu aad soo xasuusato si hadhow markaa noodkaada aragta argagax uusan kaa gelin qaladka kale oo ardada ay sameeyaan waxay tahay mararka qaar marka ay dhageysanayaan oo cashirka ay soo xaadiraan ay macalinka dhageysanayaan waxay qoraan wax kasta oo maaragtay macalinkaas afkiisa ka sheegay qoraan ardada qaar sidaas ha sameeyna sababtoo waxaad sidaas u sameeyeen macalinku mararka qaar waxaa muhiim ah inuu iska sheegay inaa waxaas qortid marka muhiim ah macalinka dhageyso markaa dhageysatid ujeedkiisa iyo waxa meesha uu ka hadlay pointiga aad ka heshay bis qoro laakiin ha qorin kalaam kasta ee macalinka uu sheegay mid kale markii isla cashirkaas markii la joogo qaladka kale oo ardada ay sameeyaan waxay marka galaaskaas ka baxaan sidaas ayay uga tagaan laakiin taasi qalad ay mararka qaar noqon karta qalad saas ah ma ahan laakiinse in warbixintii hadda aad soo barata xasuusnaad hadda way kuga adkaanaysaa marka galaaska soo gasho waxyaabaha muhiimka macalinka sheego qor galaaska markaad ka baxdidna waa inaad qortid cashirkan maanta waxaan ka soo bartay inaad su-aashaas isweydiisid boqolkiiba 90 ardada ma sameeyaan wax u dib u milicsi waxa la dhaho mararka qaar haddaad samayso dib u milicsi waxa la dhaho oo cashirkan ka soo barto aad qortid waxaad ka baaqanaysaa inaad maaragtay buugii si toos ah u aqriso sidoo kale waxaa ka baaqan kartaa in maaragtay exam markii la keeno mise quiz yar in la keeno inkastoo at least fikir yar aad ka haysato maadadaas taas way kaa saacidaysaa markaad galaas walba kasoo baxdid buug yar ku qoro cashirka maanta waxaan kasoo barto qodobada ugu muhiimsanaa inaad qoratid mise macalinka marka uu hadlayo in waxyaabaha ugu muhiimsan uu sheegayo aad qorto laakiin wax walba aadan qorin qaladka saddexaad ardada sameeyaan waxay tahay exam bis ay wax u aqraan exam bis ay wax u bartaan waxa problemka jira markaad tiraahdo waxaan exam bisaan u aqrina examka chapterkan examka lagu keena macalinka wuxuu yiri examka marka waxaas tiraahdo aday dhan pressure ku fuulay pressure buu ku fuulan waxaan inaad si wanaagsan oo qodo dheer oo aqriso ay kuga adkaanaysaa sidaas saad uga fogaatid marka wax aqrinaysid examka xagga iska dhig jaamacadda maxaa u imaatay inaad wax barato buugga soo qaado maanta chapterkan aan rabaa inaan barto dheh hadhihin chapterkanan exam u diyaarinaa hal chaptera idhiman waxaan baranaa dheh waxaan aqrisanayaa waxaan baranaa chapterkan inaad barato isku day marka waxaa qiimo u yeeshid aa ogaatid waxaan qiimaha ay ku leeyihiin cadaadiska wuu kaa fududaana rabitaana kuugu darmaayo laakiin markaa waxaad tiraahdo waxaan exam dartiisa u sameynaa
cadaadiska uu kugu badnaada. Sidaas darteed yacni ha u aqrin exam darteed. Ardayda inta badan qaladkaas way sameeyaan, laakiin markaa wax aqrinaysid, buuggaaga aqrinaysid, u aqri sidii inaad baranayso kale. Markaas waxay ku noqonaysaa si raaxaad ah inaad chapterkaas u dhex gasho. qaladka afraad oo ardayda sameeyaan waxay tahay didaalka, yacni degdega ku jiro ayaga dhan. Waxay rabaan hal chapter inay hal saac ku aqriyaan, laba chapter laba saac ku aqriyaan. Adiga degdega kugu jira ma ogi, yacni kaliya waxaa mas-uul ka tahay buuggaana mas-uul ka tahay, chapteradaana mas-uul ka tahay, yacni mas-uuliyad kale oo hadda lagu soo raaciyay ma ogi. So marka degdega iska saar. weligay hal chapter hal saac kuma aqrin, laba chapterna laba saac kuma aqrin. ugu yaraan halkii chapter wuxuu iga qaataa 3 saac ama 4 saac. yacni micnuhu ma ahan luuqadda igu adag, micnuhu ma ahan anaa damiin ah oo maaragta wax dhaqsi fahmin, laakiin macnaha ayaa waxay tahay marka hore horta waxaa iska dhadhacsha marka buugga aqrinayo inaan wax baranayo. markaas aan wax baranayo in aan chapterkaas si degan aan u aqriyo. markaa si degan chapterka u aqrididna waxaa kala ogaanaysaa waxa muhiimka ah ee chapterkan ku jiro iyo waxa aan muhiimka ahayn, yacni oo kaliya tusaaleyn loo soo qaatay oo buuggan lagu soo daray, yacni oo examna aan ku imaahayn, yacni fieldigan aad baranaysana aad kaa saacideen, laakiin knowledge kale oo extra ah yacni aad dareemaysaa. markaad aqrinayso u aqri si degan, degdega iska saar, orodka iska saar. yacni waa dhameeyaha ka gelin 5 chapter dhameeyaha ka gelin, laakiin 5 chapter dhamayso waxaa kaaga wanaagsan oo aad 5 saac ku aqrisay, 2 chapter oo aad 5 saac ku aqrisay oo si degan aad u nadiif u aqrisay oo aad wax ka baratay. chapterka asaas u aqrisana weligaa ma ilaabaysid, noloshaadana waad ku dabaqi doontaa. sababta aan jaamacadda u aadnana waxay tahay inaan wax barano, maaragtay waxaas aan barano aan nolosheena ku dabaqno, laakiin ma ahan inaan buugga hal mar wada dhammayno examka aan galno. yacni examka waraaqda dhibcaha aad ka keento xirfadaada kama qayb qaadanayaan, laakiin buugga aad barato nuxurkiisa aad qaadatay xirfadaada ku darmaya, nolol maalmeedkaada ku darmaya. qaladka shanaad oo ardayda ay sameeyaan waxay tahay waxay rabaan inuu macalinka cashirka bilaabo. chapterkaas hadduusan macalinku aqrin ma aqraayaan, way ka tagayaan. laakiin saas maahan, adiga marba haddii lagu siiyey buugga sanadkan aad qaadanayso mise semesterkan aad qaadanayso inuu macalinku chapterkan aqriya, maxaad ka sugaysaa? ha sugin galaaska inta aadan imaanba ka hor chapterka soo aqri, galaaska imaan. yacni aniga mararka qaar haddaanan aqrin chapterka galaaska ka hor haddaanan soo aqrin, macalinkaas yacni waxba kalama munaaqisho karo, waxba kalama doodi karo. sababtoo galaaska marka la joogo haddaad cashirka soo aqrisay macalinka su-aalaad weydiin kartaa. sababta waxaa laga yaabaa macalinku si aad wax usoo aqrisay aad usoo fahantay si ka duwan inuu wax u sheego, markaas su-aalaad weydiin kartaa. laakiin marka aadan hore usoo aqrin macalinku wuxuu ku shubaa wixii aad macalinka ka barataa ka tagaysaa, hadhow buuggiia maagaysa aqri, waxaad ka helaysaa mararka qaar wax ka duwan. waa ku wareereysaa ma macalinka wixiisa aad toosan mase buugga wixiisa toosan, hadhowna meela u laabata mataqaanid. laakiin marka hore buugga aad soo aqrisid macalinka wax kasta uu sheego jawaab waxa ka keeni kartaa, su-aalaad ka keeni kartaa, wax kastoo sheega waa challenge garay kartaa, hadhowna wixii si nadiif ayay madaxaaga u galayaan. qaladka lixaad oo ardayda sameeyaan ay waxay tahay maba aqriyaan buugaagta kale oo la xiriirin fildigooda. yacni nolosha haddaad tahay medicine kaliya ma ahan in lagu yiri medicine ka koobnaa, haddaad tahay math iyo maaragta engineering aad tahay muhiimaddu maan in lagu yiri engineering kaliya ka koobnaa. yacni adduunka waxaa lagu keenaa waxay tahay inaad meel kasta waxa ka aragto ood meel kasta yacni markii laga hadlayo aad si uun aad wax uga fahmi karto. aqri buugaaga dheeraadka ah, taas waxay kaa saacidaysaa markaad aqrisid buugaag dheeraad ah horta luuqadaada way ku kala furfurmaysaa, way ku badanaysaa. markaad buugta cashiradaada aad way ku sahlanaanaysaa, sababtoo qof waxaa tahay yacni wax hore soo aqriya. sidoo kale qofba qofka uu ka aqris badan uu ka xasuus badan. haddaa mararka qaar maqasho wixii aan aqriyay waa iloob, yacnaha waxay tahay qofkaas aqriskiisa yar. so markastaad aqriskaaga badisa xasuustaada way siyaadsanaanaysaa. xasuusta marka waxyaabaha lagu quudsho xasuusta lagu siyaadsho waxaa ka mid ah aqrinta. marka isku day in buuggaga kale oo banaanka ka ah fieldigaaga aad aqriso. mararka qaar waxaa laga yaabaa buugga sanad ka hor aqriso in macalin lecture kuu soo jeedinayo oo ka hadlayo, maseba ma aragtay cashir maanta aad qaadanayso in lagu yiraahdo buuggaas wax ka soo qor, maseba buuggaas wax ku saabsan yacni in semester kale aad ku qaadato ayaa laga yaabaa. marka isku day inaad buugaag kala aqriso si ma aragtay cilmiga aad qaadanayso u siyaado, si xasuustaada kugu kala furnaato iyo si luuqadaada u ballaarto iyo si cilmi dheeraada aad aga hesho. marka 6daas qaladba waa qaladaadka ardayda ay sameeyaan. arday kasta hor waa u sameeyay mase hadda ayuu sameynaa. haddaad 6daas qalad aad samayso iska daa, bedelka aad samayn kartana waa kuu soo sheegay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.